waxa darajadaada kor kuu qaadaya ee qiimo kuu yeelaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini'aadamka kor u qaadaya waa iimaankii camalka saalixa man kaana yuriidu alcizzata falilaahi alcizzatu jamiica qaruusiyey wusiika yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu ku yidhi laa tadacanna fii duburi kulli salaa an taquul allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tegin inaad tidhaahdid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa daacadaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggeega maada nebigu ma sinay ninka uu jecel yahay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaysan ilaahay ka malaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame hadduu lahaa khayr baan wataa may khayrkiisii ma aha arrintu way ka weyn tahay salaad baan wataa salaadda waa lagu badbaadayaa laa shakka laakiin muuminku halkaa markuu banka qiyaame ilaahay hor joogsado salaadii iyo soonkiisii eegi maaye ilaahay raxmaddiisa buu maanta eegaya qofka muuminku ilaahu raxmaddaadiin buu leeyahay aayaddan qur-aanku waagu ugu baryey abibakr sidiiq radia allaahu canhu markuu nebigeennu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nebiga lagu yidhi salaaddii baa taagan nebi allow markaasuu nebigu yidhi abubakar u sheega ummadda salaadda ha ka bixiye caaisha radia allaahu canha oo ag taagnayd nebiga ayaa ku tidhi inna abaa bakrin rajulun raqiiqun abubakar waa nin qalbi jilicsan weeyaan idaa qara'a alqur'aana halabahu lbukaa hadduu qur-aanka akhriyana oohintiisa ayaa qur-aanka ka qaalib noqota